dabeecadaha dadka aamusan ee xirxiran bulshadana aan dhexgelin. Dabeecadan waxaa loo yaqaanaa afgaabnida. Ma ahan cudur u baahan in la daaweeyo, waa dabeecad ka mid ah dabeecadaha uu Ilaahay ku abuuray bini'aadamka, laakiin dad badan aysan aqoon u lahayn fahmidda iyo la dhaqanka dadka leh dabeecadan. Sidaa darteed, waxaan si kooban uga hadli doonaa sida aad ku garan lahayd dabciyada dadkan, iyo qaabka ugu habboon ee aad ula dhaqmi lahayd, iyo faa'iidada ku jirta la saaxiibkooda ama nolol la wadaagistooda. Waa maxay dabciga dadka aamusan ee aan bulshada dhexgelin? Si loo fahmo dabciyada dadka kala duwan, waxaa muhiim ah in la fahmo qaabka ay u fekeraan dadkaas ama maskaxdoodu u shaqayso. Haddii aad fahantid qaabka ay u fekeraan, dabcigoodu waad fahmi kartaa. Dadkan loo yaqaano introverts, yacni dadka aamusan, markii ay wax la kulmaan isla markiiba go'aan ma qaataan. Waa in waxaasi ay maqleen ama ay arkeen la sii mariyo qaybta xasuusta maskaxda, kadibna la sii marsiiyo qaybta qorsheynta maskaxda, kadib ayuu qofku falceliyaa. Baynamaa dadka lidkooda ah aysan intaas marin, oo wixii la weydiiyo ama ay la kulmaan ay isla markiiba ka falceliyaan. Sidaa darteed, farqiga labadan qof u dhexeeya waxaad ku fahmi kartaa jawaabahooda. Qofka afka gaaban ma hadal badna, wuuna ka fiirsadaa inta uusan hadlin. Hadday xasuustiisa soo qabato wax la xiriira hadalka lagu yiri ama wuxuu arkayba, wuxuu falcelintiisu ku saleeyaa xasuustaas, kadibna qaabka ugu habboon oo uu isleeyahay uga jawaab ayay maskaxdiisuna uga jawaabtaa. Sidaa darteed, mar walba jawaabta uu bixinayo isku mid ma ahan, waana sababta ay u necab yihiin in su'aalaha lagu kadiyo iyo in la weydiiyo qaabka ay u fekerayaan. Taleefanada horay ogama qabtaan dadkan ilaa inay og yihiin sababta aad u soo wacaysa mooye, iyagoo qiyaasanaya sababta aad u soo wacayso. Inta badanna sax ayay noqotaa qiyaastoodaas, waxayna ka doorbidaan inta badan in ay qoraal kula soo xiriiraan maadaama ay helayaan waqti ay ku fekeraan. Haddii aanad ka warhayn dabeecadooda, waad dhibsanaysaa, iyaguna way ku dhibsanayaan. Inkastoo markaad tala ka heshid aad la yaabaysid xigmadda ku dheehan talooyinkooda, ileen waa wax maantoo dhan laga soo fikirayay oo meelo badan laga eegay. Waxaa intaasi dheer in fikirkaas iyo falanqayntaas ay u baahan tahay meel aan buuq lahayn oo degan, waana sababta keentay in ay ka helaan kelinimada. Waxayna aad u necab yihiin buuqa iyo fagaaraha bulshada isugu timaado. Haddii lagu qasbo in ay tagaan xafladaha, waxay la soo laabtaan diiqad iyo madax xanuun inta badan. Waxayna xiiseeyaan howlaha badanaa la qabto markii keli la yahay, sida wax qorista, farshaxanka, nashqadeynta, injineernimada iyo wax alifidda. Sidaa awgeed, dadka howlahaas ku takhasusay badankoodu waa dad dabciga afgaabnida ah leh iyo xirxirnaanshaha, sababtoo ah markii ay keli yihiin ayuu wax soo saarkoodu badan yahay. Markay shaqo ku jiraan, waxay xiiseeyaan wax akhriska, wax daawashada, isticmaalka kombiyuutarka, xiriirka internetka. Inta badan waxay dadkan kaga dhagan tahay noloshii hore ee dabiiciga ahayd, sida in xoolaha la raaco, beeraha la dhaqdo, baadiyaha lagu noolaado. Sidee loola dhaqmaa dadka dabcigan leh? Si aad u ogaatid qaabka ugu habboon ee dadkan aad kula dhaqmi kartid, waa in aad iska ilaalisaa qaladaadka badanaa bulshada ka aaminsan tahay, sida inaad si dhaqsi ah isku barataan oo qofkani uu kuu furfurmo oo kalsooni ay timaado. Waqti ayay qaadanaysaa, laakiin markaad kalsooni ka hesho dadka dabcigan leh, si fiican ayaa la isku fahmaa, wayna ku hagarbaxaan dadkan. Laakiin haddii aad kalsoonidaasi ku ciyaartid, waxaa laga yaabaa in xiriirka ay kuu jaraan oo aysan dib dambe kuula hadlin. Wayna ku adag tahay in mar kale ay ku aaminaan, ileen kalsoonidii ay ku siiyeen ayaad burburisay. Waxaa kaloo dabciga lagu qaldaa xishoodka, laakiin kelinimada ayay xiiseeyaan, wayna ka fogaadaan meelaha bulshada ay ku badan tahay. Laakiin qofka xishoodka badan wuu ka cabsadaa bulshada iyo isu soo baxa. Meel fagaare ahna kama hadli karo, laakiin dadka afka gaaban way ka hadli karaan meel la wada joogo oo fagaare ah. Laakiin waa inay ku soo talagaleen oo ay ka soo baaraan degeen hadalkooda iyo waxay ku hadli lahaayeen. Sidoo kale, hadalkooda ma badna. In hadalka kadib su'aalo la weydiiyo ma jeclo dadkan. Waxaa kaloo dabciga lagu qaldaa niyad jabka iyo murugada. Dadka afka gaaban ma ahan dad niyad jabsan, inkastoo ay u muuqdaan dad xanaaqsan,
maadaama aysan hadal badnayn. Farakacayaarka iyo faduulintana aad ayay u necab yihiin, laakiin haddii aad isku kalsoon tihiin way kaa qoslin karaan wayna kula ciyaarayaan. waxaa kaloo dabcigan lagu qaldaa isla weynida, sababtoo ah maadaama ay necab yihiin hadalka badan. sidoo kale booqashada kadiska ah way necab yihiin, waxayna xiiseeyaan la sheekaysiga dadka waaweyn iyo ka baaqashada martiqaadka in loo arko in ay kibir badan yihiin oo ay dadka iskala weyn yihiin. taasina waa qalad badanaa lagu dhaco. waxaa kaloo dadkan loo maleeyaa in ay fahmad yar yihiin markay shaqo ama waxbarashada ku cusub yihiin, sababtuna waa culays dhinaca la qabsashada ah. laakiin markii ay la qabsadaan aad ay ugu fiican yihiin shaqooyinkooda iyo waxbarashada, waana dad si dhaqsi ah loo dalacsiiyo. dadka ay u shaqeeyaan way ka helaan dadka noocan ah maadaama wax shaqada ka baxsan aysan iskugu imaanayn.